wasiir ku-xigeenka gobolada ee degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda hawlaha guud barasaabka gobolka Togdheer iyo guddiga nabadgelyada gobolka ayaa go'aano ay soo saareen ku sheegay inay soo afjareen khilaafkii ka dhex taagnaa golaha deegaanka Burco hase yeeshee goobtii wasiirku go'aanadan ka akhrinayay ayaanay goobjoog ka ahayn dhinacyadii golaha deegaanka ee khilaafku u dhaxeeyay hawshii yareed ee dabfiliqda ahayd ee ka dhacday golaha deegaanka ayaanu maaraynay si wanaagsan oo wada hadal iyo heshiis iyo wada tashi ayaan ku dhamaynay waxaan kaloo ka soo saaray xeer nidaamiye qeexaya inaan wax sidaas oo kale ahi mar dambe dhici karin waxaanan u akhrinay babadii aan ku amaray iyana ay nala qaateen baan halkan idinka akhriyaya waxaan halkan idinka cadaynaynaa inaynu leenahay xeer faahfaahsan oo u fasiraya habka loo marayo xilka qaadista iyo xil u doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada cid kasta oo aan loo marin habka xeerku jideeyay oo isugu dhawaaqda guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen wuxuu jabiyay xeerkii dalka u yaalay waxaana laga qaadi doonaa dembiga uu galay ciqaabtiisa xildhibaanka golaha degmadu waa xeer dejinta degmada lagama ogola abuuridda ama ka qayb qaadashada hawlo liddi ku ah nabadgelyada iyo xasilloonida qaranka arrintii hore ee dhacday ee ay ku kaceen xildhibaanada qaarkood waa khayral dastuuri maayarka iyo ku-xigeenka degmada Burco waa kuwii lagu doortay sida sharciga ah waxaanay kala yihiin maxamed yuusuf cabdiraxmaan iyo maxamed xasan jaamac xoday waajiba inaan warbaahinta la isu adeegsan ee aad qoraal ugu gudbisaan cabashadiina gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee khusaysa arintaa waxa isla qaadanay horena aan warbaahinta uga sii daayeen qalad ahayd imikana way nala qirteen qalad ahayd waana qaateen qaybtii kale dhinaca kale ka soo jeeday iyagoo gacmaha haysto isku mid ah golihii aan naqaanay oo 12 kaana si fiican bay nooga wada baxeen maanta Ibrahim Farax Macaan iyo Honkebel TV Burco.